بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد الحو أردي وحين شرحيني مادة حسابتا فصل كسيديدات cutubka aljabra ayaynu ku jirnay cashirkii saddexaad baynu sharaxnay qaybta isu qaybinta iyo waxqabadka halka inoo muuqda. sidoo kale waxaan sharaxnay nolol maalmeedkani iyo waxqabadkani labaad. cashirkeenan maanta wuxuu ka bilaabanayaa isu qaybintu marka waa tibxa aljabra ee la doonayo in la fududeeyo la isu qaybiyo. haddaba tusaalaha ugu horeeya waxaan haysanaa tusaalaha kood weeye ba 18ab oo u qaybsan 9ab, balse furfurista hoose waxaan arkaynaa in 18 ama 18 ba la ay tahay oo 18abl ay la jirto, halkaasna l ay ka maqan tahay. sidaas awgeed l anagoo raacinayna ayaynu ka shaqayn doonaa maadaama l uu ku shaqaynayo buugu. haddaba halkaasaynu tegaynaa, waxaan haysanaa waxa weeye waa xarafka ba, waxaan haynaa 18 abl, intaasi waxaa hoos loo qaybiyey 9ab. okay, waxaanu yeelaynaa markuu fiirso kor waxaa ku jira da hoosaan la saaraynaa, kor waxaa ku jira b da hoosaan la saaraynaa. maadaama l aan kor hoos ku jirin waynu ka leexanaynaa, balse 18 kaasi koro waxaan u qaybinaynaa asna 9 kaasi. haddii 18 loo qaybiyo 9 waa 2. haddaba kor waxaa inooga soo baxay un kaliya l baa inooga soo haray. haddii 18 loo qaybiyo 2 waxaa soo baxaya 2. haddaba 2 ayaa waxaa raacaysa l, jawaabtuna waxay noqonaysaa 2l. haddii la kala furfuro waa iska caadi oo sida buugga hadda uu shaqeynaya haddaan eegno u fiirso in qaabka loo furfuro oo 18kii 3 lagu dhiftay 3 lagu dhiftay 2 saas loo kala qaado, 9kii 3 lagu dhiftay 3 abl dibadda la saar u fiirso, 3 la saarta taana la saar 2 baa ku soo haray, la saar bb la saar kor l baa kaga soo haray. haddaba ugu dambeyn marka waxaa ku soo baxayo 2l. qaabkaas ma bedeli kartaa si toosana wada isugu qaybin kartaa. taa baynu gudbaynaa. taa waxaan haysanaa 4my² oo loo qaybiyey 16m. haddaba haddii laga shaqeeyo maxay noqonaysaa? waxaan haysanaa 4my² oo loo qaybiyey 16m soo maaha. walaarta waxaan u qoraynaa jajab oo sareeyo iyo hooseeyo oo kale. 4my² loo qaybiyeynu leenahay 16m. intaasi waxay leegtaan leenahay m taas u fiirso, m taasi waxaan la saaraynaa m taa hoose. 4 waxaan u qaybinaynaa 16 maadaama 4tu ay sareyso halba ka soo bixi, hal ku dhifo y² waa y². intaasi oo markaasi loo qaybiyey 4. intaasi oo loo qaybiyey 4. waxaan haysanaa waa 4my² oo loo qaybiyey 16m. waxaan doonayaa marka inaynu bal markale ku celino waa 4my² oo loo qaybiyey 16m. aan soo hubino bal waxaan haysanaa waa 4my² oo loo qaybiyey 16. m iyo m baa isla bixi. 4 waxaa loo qaybinayaa 16, waxaa ka soo hari 1. haddaynu fiirin jawaabta buugga uu soo saarayo waa my oo loo qaybiyey 4 m. laakiin buuggu qaybta kore wuxuu yeelayaa inuu y² siinahayo errors ee meesha ka jira, qaybta hoosena wuxuu siinahayaa m2² ka siinahayaa. saas awgeed labadaba waynu ku shaqaynaynaa marka haddaynu haddaynu isku horsiino oo y² aynu dhahno, jawaabtu soo baxda waxay noqonaysaa y² oo loo qaybiyo 4 bay noqonaysaa. balse haddaynu square-ka aynu siino m oo markaas aynu qaybino 16, tani y² saas sax ku soo maaha. tani waxay noqon doontaa hoosna m baa raacsane, square-kaasi iyo m ta isla bixi, 4na waxaa loo qaybinayaa 16. marka maxaa soo haray my m 4tu way baxday waxa ku soo harayo my oo markaasi loo qaybiyey 16 4 qaybina waa 4. yani jawaabtan baa ku soo baxaysa. marka buuggu waxa kala duwan yacni suu u shaqaynayo iyo waxa kala duwan su'aasha marka hore na weydiinayo shaqadiisa kala duwan. markan waxaan arkaynaa 4my² loo qaybiyey 16m, hoosna wuxuu ku shaqaynayaa 4m². halkii y² uu saaraabu m saari. haddii m la saaro square-ka jawaabtani waa sax. haddii square-ka y-da la saarana tan ayaa waxay noqonaysaa tan saxda ah. labadaas qaab in la fahamtay iyo rajaynaya.
waxaan u gudbaynaa su-aasha ja waxaan haysanaa iyana 7 iyo 10 waa ka egas ku jibaaran 3ab square loo qaybiyey 9a egas b haddaynu fududeyno iyana maxaa soo baxaya wixii qaldan buug u qaldo ama qaabka uu shaqeynayo aan u shaqeynaynaa waynu saxaynaa insha Allah taala intaba waxaan haysanaa ja waa 7 iyo 20 egas ku jibaaran 3 b ku jibaaran 2 oo dhamaantood loo wada qaybiyey 9a egas b u fiirso marka waxaynu sameyn karnaa inaynu isla saarno square-kaas iyo b-daas waxaan seli karnaa inaynu isla saarno a-daas iyo a-daas waxaynu sameyn karnaa inaan 7 u qaybino 9 oo markaas kuu soo baxayso haddaan hoostaas aan kusii dhigno 3 baa kuu soo baxayso 7 3 u qayb 3 soo maha 7 9 u qayb 3 egaskani marka waxaa saaran jibaar oo 3 hore waxaa usoo baratay haddii labada sal ay isku mid yihiin ay isla qaybsan yihiin midka qaado jibaaradana kala go haddaba waxaa kuu soo bixi doonaa egas laba jibaaran baa kuu soo bixaya egas laba jibaaran marka intuu kaga soo baxaya kor buu kaga soo bixi waa egas laba jibaar haddaba dhammaan marka haddii la fuudeeyo sidaas kuu soo baxaysa waa 3 egas square yani 7 kaasi 9 u qaybinaysaa waa 3 egas cubic waxaad jibaar halkan halba watay 3 halka go waa 2 egas square baa kuu soo haraya eedaas baad la saartay bidana waxay wadataa maxay bida tan ayaa waxay wadataa square maadaama square wato square kii b isla baxayo waxaa kuu soo haraya b oo nadiif ah sidaas awgeed jawaabtu waxa weeye waa 3 egas square b qaabkaas waa qaabka fudud ku shaqeyn karta dad doonto furfuran kartaa waxaad dhigi kartaa 7 waxay ka imaanaysaa 3 lagu dhuftay 9 egas cubic waxay ka imaanaysaa egas square oo ku dhacsan egas b waxay ka imaanaysaa oo laba jibaaran b lagu dhuftay b intaasi oo loo qaybiyey 9 iska soo qaado egas b taastaa dhahdo dabadeed waxaad heli kartaa inaad sidaan sameyso u fiirso b-dan la saar b-daas eedani la saar eedaas egastan la saar egastaas 9kan la saar 9kaas maxaa ku saaray marka 3 iyo egas square iyo b-daas ku saar marka waxay noqonaysaa 3 egas square b qaabkaasna waad heli kartaa taa doonto kaasna waa qaadan kartaa waa soo gaagaabsan kartaa oo billaah tawfiiq waxaan fiirinaynaa jawaabta buugu soo saarahayo waa 3 egas square b waa taan iskaga midna weeyo oo si sax aan ugu wada shaqeyn labadeenuma maadaama xogaa markii hore jawaabta iyo ay kala duwaneeday shaqada uu buugu bixinayo qaybta tani wuu ku saxan yahay marka waxaynu u gudbaynaa layli baa ku xigeen layligan isku dhifasho iyo wuxuu ka kooban yahay isaguna isu qaybin isku dhifashada ka bilaabayna waxaan haynaa isku dhifasho fududay baa lagu tibcaha aljabra soo socda number 2 waxaan 3 oo lagu dhiftay 8b oo laga jaray hal halkaasaynu tagayna u fiirso markaan tagno waxaan leenahay waa number 1 waxaan haynaa 3 oo lagu dhiftay 8b oo laga jaray hal waxaan samaynaynaa 8 kaas ku dhifanaysa ugu horeyn 3 ku dhifanaysa 8 kaasi marka waxaad ku dhifanaysaa -1ka haddaba 3 ku dhif 8 24 waaye b maadaama ay 8 ku dhacsanaa b baad raacin laga jaray calaamada qaado 3 ku dhifo haddana halkaasina waa 3 haddaba numberka koobaadii sidaas ayaan uga shaqeynay waxaan u gudbaynaa numberka labaad waxaynu haynaa waxa weeye egas ku dhacsan 3 egas ku dhacsan oo lagu daray 51 egas weeye maxaa soo baxaya waxaan haysanaa waa egas bilayna furaynaa 3 egas plus 1 intaasi oo dhammaan lagu daray 51 egas soma waxaan leenahay u fiirso marka it's very simple yahay egaska inta 3 egas ku dhifo mar labaadna 1 kaas ku dhifo haddii egas lagu dhifto 3 egas labada egas baa isku dhacaya waxay noqonaysaa 3 egas laba jibaaran haddana 3 ku dhifo egas ku dhifo hal waa egas un kaliya waxaa ku darsan 51 egas 3 egas laba jibaaran maadaama tibixi oo qeynaalka awlin waxaan leenahay 3 egas laba jibaaran waynu soo ceshanaynaa plus egas iyo plus 51 egasna waxaa ka soo bixi doona plus 52 egas ayaa halkaasi kaaga soo bixi doonta haddaba jawaabta saxda ahi sidaasi ay noqonaysaa numberka saddexaad baan u gudbaynaa ardayo waxa weeye 5n oo ku dhacsan 5m laga jaray n haddayna fududeyno maxaa soo baxayo waxaan haysanaa waxa weeye waa 5n bilfur intaas waxaa ku dhacsan tahay 5m minus m baa intaa ku dhacsan marka 5 ku dhifo 5 kaasi waa 25 n ku dhifo n m na waa m n
haddana 5 ku dhufo 5n ku dhufo minus n waa minus 5 labada n baa isku dhacaysa waa 5n laba jibaaran wey. haddaba tan lama sii fududay karo 5mn 25mn iyo 5n square lama fududay karo, sidaas awgeed sidaan ku fududaysan tahayba jawaabtuna sidaasi ayay sax ku tahay. waxaan u gudbaynaa nambarka afraad waxaan haysanaa 8 square oo ku dhacsan ab 8 waxaan haysanaa 8 a square oo ku dhacsan a oo lagu dhuftay b. haddaba waxaan leenahay u fiirso 8 ku dhufo horgalaha ab oo hala waa un 8 kaliya, eedan square-kan eedaas bay ku dhacaysaa a laba jibaaran haddii a hal jibaar lagu dhufto waxaa soo baxay a saddex jibaaran dabadeedna waxaa ku dhacsan p sababtoo ah b du iska soo ceshanaynayo number kale oo aan ku dhufano ama tibix kale xaraf kale oo aan ku dhufano meel saas awgeed waa 8 cubic p. jawaabtuna sidaas ay sax ku tahay. waxaan u gudbaynaa su'aasha shanaad waxaan haysanaa 3m plus 4 oo ku dhacsan m plus 5. haddaba tani waxaan u maleynayaa example aan ku soo sharaxnay example-ladii hore balse ka shaqeynayna waxaan leenahay waa 3m plus maxaan haysanaa waa 3m plus 4 oo markaasi ku dhacsan m plus 5. haddaynu ka shaqeyno maxaa soo bixi doona 2 ways baynu u shaqeyn jirnay xisadii hore oo kale. waxaan dhihi karnaa inaanu 3m ta inu soo qaadano oo bil furno dabadeedna aan dhahno m plus 5 oo inta dambe aan ku dhufano haddana plus 4 inu soo qaadno tibixda labaad oo aan ku dhufano hadda barakaadka dambe tibixaha ku jira oo ah m plus 5 dabadeedna aan dhahno 3m ku dhufo m waa 3m laba jibaaran 3m ku dhufo 5 waa plus 15m plus 15m haddana dhahno plus 4 ku dhufo m waa plus 4m haddaynu dhahno plus 4 ku dhufo plus 5 waa 20. haddaba 3m square isku soo celinaynaa maadaama tibix kale laba jibaaran oo ogaana soo noolin 15m iyo plus 4m na waxaa ka soo baxaya plus 19m plus 20 na waynu soo ceshanaynaa jawaabtuna sidaasi ayay sax ku tahay. waxaan u gudbaynaa su'aasha xigta ee lixaad waxaan haysanaa y laga jaray 2 oo ku dhacsan 2y. haddaba haddaynu fududeyno maxaa soo baxaya waxaan haynaa y oo laga jaray 2 oo ku dhacsan 2y. haddaba u fiirso y-daynu soo qaadaynaa waxaan ku dhufanaynaa 2y yani tibixaha horeynu soo qaadaynaa mid barakaadka dambe tibixda ku jirta aynu ku dhufanaynaa haddana tibixda labaad ee soo hartay aynu soo qaadaynaa barakaadka haddana taa ku jirta aynu ku dhufanaynaa. haddaba y ku dhufo 2y waxaa kuu soo baxaya 2y laba jibaaran minus 2 ku dhufo minus 2 ku dhufo 2y na waa minus 4y ama simple waxaa dhihi kartaa y ku dhufo 2y waa 2y laba jibaaran minus 2 ku dhufo oo sidoo kaliya oo yara la fududay oo la muujiyo kaliya weeye. haddaba jawaabtu saxda waxay noqonaysaa 2y laba jibaaran laga jaray 4y. jawaabtu sidaas sax ku tahay. waxaan u gudbaynaa su'aasha toddobaad waxaan haynaa m laga jaray n oo lagu dhiftay m laga jaray n. haddii la fududeeyo maxaa soo baxaya waxaan haynaa m laga jaray n oo lagu dhiftay m laga jaray n. haddaba ugu horeyn m taasi ku dhifo waa m laba jibaaran haddana m taasi ku dhufo m tani waa m n haddana minus n ku dhufo m taasi waa minus n m haddana ku dhufo n minuskaasi plus bay isku noqonahayaan waxaad isku dhufanaysaa imika tani waxaad isku dhufanaysaa n waa n square. haddaba jawaabtu marka waxay noqon doontaa m square soo celi waxaan ku xujinaynaa plus n square tani maadaama jibaar uu wato waan isku xujinaynaa balse isku dari mayno isku badarsami maayaano midna waa n midna waa m. haddaba n square waa soo qaadan minus mn iyo minus nm no isku weeye minuska soo qaado 2mm bay noqonaysaa. marka meeshaan dhahay mn tan waan dhigi karaa mn ama nm isku meeshii la weeye. haddaba waa tibaxa isku eg mn iyo nm ama mn iyo nm tibaxa isku eg weeye maadaama tibaxa isku yihiin lana isku darayo calaamadood soo qaadan dabadeedna sidaasi ayaad u qori doontaa sidaasina jawaabtu ay sax kugu tahay. waxaan u gudbaynaa nambarka xiga sideedad weey. sideedad waxaan haynaa x laga jaray 2 oo ku dhacsan 3x plus 4. haddaba haddaynu ka shaqeyno maxaa soo baxayo waxaan haynaa waa x oo laga jaray 2 oo markaasi ku dhacsan 3x oo lagu daray 4. haddaba waxaan leenahay x inoo soo qaad waxaad ku dhufanaysaa tibcaha hadda bisha dambe ku jira waa 3x plus 4 haddana minus 2 noo soo qaad tibcaha bisha dambe ku jira haddana ku dhifo x ku dhifo 3x waa 3x oo laba jibaaran x ku dhifo plus 4 na waa plus 4x
minus 2 ku dhifo minus 3x ku dhifo waa minus 6x minus kaasi plus kaasi waa minus 2 ku dhifo 4 na waa 8 ugu dambeyntii marka hadii la fududeeyo waxay noqon doontaa 3x laba jibaaran plus minus way kala jarmayaan maadaama tiradani muuqaalahan ay weyn tahay minus keenu qaadan minus iyo plus aslan ba tirada hadii minus wadato way ka yartahay tiro kasta ee plus iyo everba balse muuqaal ahaan bay 6 weyn tahay calaamadeedana qaadanayna 6 farka goona waa 2 egas baynu raacinayna imikaasi minus 8 waxna ku darmayno waxna ka jarmayno jawaabtuna sidaasi ayay sax ku tahay waxaan u gudbaynaa masalada ee su'aasha qaybtan way dhamaatay